identity هويدي واللونت هويدا ما identity dadku leeyahay waa waxa uu dadka kale kaga soocan yahay waxa ugu weyn laba shay waa af iyo diin waa labada shay ugu weyn ee bini'aadamku ka dhigto maxay identity uu ka dhigto labadiiba ama waaba sii gabaabsi ama waa sii lumayaan oo afkeennii uu ka sii baxayaa meesha innaga iyo ubadkeennii si fiican isuma afgaranno luqaday ku hadlaan iyo luqadaynu ku hadallaa isku mid maaha identitygii luqannimo ee soomaaliyeed way lumiyeen waxaa kaloo sii lumaysa identitygii diineed muxuu u lumayaa adigu laba wax baad haysato ku ilaaliyay identitygaaga diimeed koo waxaad timi adigoo mumayisa adigoo caqligaaga uu dhammaystiran yahay adigoo waxna xuma u yaqaana waxna sama u yaqaana adigoo waxa saxa iyo waxa qaldan kala yaqaana adoo valueska islaamku uu leeyahay rumaysan mararka qaarkood waa laga yaabaa shahwaatu nafsiga inaad ku dhacaysay maalan qofka zinaysta wuxuu zinaysanaya isagoo arkay inuu xuma samaynayo laakiin umuu arkaynin wax fiican inay tahay wuxuu samaynayo dan valuegii ahaa inay zinadu xunta waad rumaysanayd walow kuba dhacba valuegaas waad rumaysanayd aduu marka hore waxaad timi adigoo valueskaaga iyo qiyamkaaga iyo tasawurkaaga iyo caqaa'idaada iyo waxaad rumaysantahay kuu dhan yihiin waa mar labaad adigu indimaaj lamaad samaynin gaaladee waad ka soocanta intina ugu badani shaqaad soo shaqaysaa waxaa laga yaabaa inta ugu badan 10 gaal inay wada shaqaysaan ama 10 kaana 5 shiya ka timi kow gaal ingiriis iyo dadkan iyo fikirta qabanaya waxay qabaan waxa laga yaabaa shaqada dhowr qof inaad isku aragtaa bas markaad ka soo rawaxdana ama masaajidka timaada ama maqaaxidii Soomaalida timaada xiriir kale idin kama dhaxeeyo marka adigu kow markii horena waad ilaashanayd markii labaadna meelaad ku gabato kalaad heshay oo Soomaalidii iyo masaajidkii iyo maqaaxidii iyo intaas aad socotay ilmahan isaga marka laba dhib baa wada haysta makiinadan ka warramay doono shiin soconaya aynu dhiibna oo ku daray oo waxbarasho leh oo culture leh oo dhaqan leh isagoo aan dhammaystirmin ayaynu nursery kaga bilownay ama school kaga bilownay dabeetana iyaga tababaray waa mar labaad adigu dadkan indimaaj kumaad samayn lamaad noolaan isaguu la nooliyey waa la asxaab waa la kalaas waa la nooliyey waa la ciyaaraa waa isku xidhan yihiin waa dadkan wuu la nooliyey adigu se lama noolid really isagu waa nin ama waa gabadh ku dhex jirta ummadatan adigu se sinaba waxuma wadaagtaan saacaadkaa shaqadoo kale aamusan tihiin aydan wax badan ba isweydiinin ayaa wada joogtaan inta kale isma aragtaan haddaba mashaakilkaas sawirkiisu waxba uma baahna baraaco badan iyo inaan ixsaa'iyaad akhriyo inkastoo laga yaabo dhan inay awareness ka samaynayso laakiin dhanka kale waxaan ka baqayaaba inay idin jebidso waa istiraadaan tan cidina badbaadi mayse ilaahay bay leeyihiin inta guriga sii fadhiisataan saa daraaddeed ixsaa'iyaadkaa badan waxba akhriyi mayno waayo intay awareness keenayaan intaa niijabaysaan baa ka badan laakiin waxaan rabnaa inaan tilmaamno war hantida qura aynu haysanna waa dad bini aadan baa ugu hanti fiican waxay yidhahdaan qoraacaan oo brazilian Paulo Coelho bay yidhahdaan Paulo Coelho waa nimanka buwaagta ugu badan ee dunida la iibsada leh almost waxaan filayaa 150 million copies ka badan inay bookiskiisu gaadhayaan 150 milyan wax ka badan waa the second man bay yidhahdaan dunidaba saa wax u publish gareeya waa nin ahaan jiray waagii hore qoladan adabkee wax tiriya heesaha iyo riwaayadaha iyo waxa sameeya markii dambana noqday qoraa novelladan iyo waxa la qoriyo waxa kan sameeya imikana United Nation ka buu malaa u yahay rajul salaamka dunida qisaskiisa waxa kamid ah qisa yar oo kooban shaka yar oo kooban buu qoray
sheekada koobana uu qoray wuxuu yidhi oday baa jariidada akhrisanayay buu yidhi dabeetana inan yaroo u dhalay ayaa mashquuliyey markuu is idhaahdaa rogba ku yarba su-aal weydiiyo mashquuliyo kan yar iska mashquuli buu isna is yidhi marka intuu jariidadii rogay ayuu xaashi maabka dunidu ku sawiray intuu soo jeexay ayuu googooyey markaasuu intuu u dhibay buu yidhi halkaa fadhiiso dunidii dib isugu rakib maabkii dunida samee wuxuu isla haddee kaa yar dirtay kugu soo noqon maayo qisada waxay sheegaysaa inaan 15 daqiiqaba gaadhaynin markuu kii yara maqnaa ayuu soo noqday isagoo wada bahashi markaasuu yidhi waa tan waan sameeyey odaygu su-aal buu weydiiyey war ma hooyadaabaa kuu dhigtay jugraafiga buu ku yidhi markaasuu yidhi may hooyo jugraafiga ima dhigto dasaad u samaysay buu yidhi waraaqdan aad ii dhiibtay buu yidhi xaggan maabku ka sawira xaggeeda kale qof baa ku sawiraa qofkii un baan isku hagaajiyey buu yidhi gacantiiyo lugtiiyo adinkiiyo isugee dee dunidina way isku hagaagtay markaan qofki isku hagaajiyey dabeetana weedhii inanka yar bay ka dhigeen weedh xikmad ah waasaa maamaahaan soomaalidu ku baxaan oo kale weedhaasaa waxay tahay cindamaa acadtu binaa alinsaan acadtu binaa alcaalam buu yidhi markii aan qofkii bini aadamka ha dhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay waxay leeyihin ilmaha yari wuu iska yidhiye that's the real world noloshu waa taa qofka bini aadamka marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa qofka bini aadamkii markuu dumana nolosha iyo dunidooba waa duntaa qofka bini aadamka caqiidadiisa mabaadi'diisa valueskiisa xorriyadiisa cadaaladii waxaasi markay dhismaanna adduunku wuu dhismaa bay yidhaahdaan markay dumaanna wuu dumaa walidaalika baa iminka aqoon-yahanada waaweyneye reer galbeedku aada u qaylinaya ay leeyihin xadaaradeenni way dumaysaa maaha cid ka xoog badana inay timi waxay leeyihin trendkaynu hayno wajahadaynu u jeedno ayaa ah meelay wax ku dumayaan waddanna waaweyn oo dunida ka midaba waxay tilmaamaan in wax kale ma haysanay bini aadam baanu haysanaa markaanu bini aadamka maal gashanay ayaanu nolosha adduunyo dhan bedelay yani waddankan yar ay yidhahdaan jabaan wuxuu leeyahy qofka bini aadamka aanu maal gashanay dabeetana noloshaanu bedelay sidaa awgeed culammada ka waranta sociology bulsho kuwa ka warrama psychology kuwa ka warrama dhaqaale iqtisaad economics kuwa ka warrama siyaasa kuwa ka warrama tarbiya iyo educational policy waxoo dhamme waxay yidhaahdaan one thing bay ku salaysantay bay yidhahdeen philosophy qofka bini aadamka maxaa u cuntama maxaa u fiican school of thoughtska kala gedisani waxay sifaynayaan qofka bini aadamka wixii ay u arkayeen iyagu inuu u fiican yahay dabeetana politicalka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ijtimaaca iyo bulshada iyo waxoo dhan waxay ku salaysan tahay qofkan bini aadamka maxaa u fiican see loo horumariyaa saddex aragtiyoodoo kooban bay dunidoo dhammi rumaysantay markaa qola u aragta qofka bini aadamka inuu shaydaan yahay imtixaan inuu yahay asalkiisu inuu shar yahay markaa systemka iyo dhaqaalaha iyo waxoo dhammi inay ku salaysnaadaan qofkan in la xakameeyo qofkan in la rifo qofkan in la controlo how much you do that ayaad nolosha horumaraysa bay qabaan waa mathalan even philosophyga christianity baa ka mid ah oo christianity wuxuu rumaysan yahay in lagu dhashay khati'a qof walba eedii nebi maxamed nebi aadam inay dhinac ka saaran tahay oo dadkao dhammi dambiilayaal yihiin ay u baahan yihiin salvation iyo wixii rifi lahaa iyo qurunka ka rogi lahaa qayb kaloo ka mid waxay rumaysan yihiin insaanku inuu khayr yahay wanaag inuu yahay wax yararoo dulduula ka dhac laakiin waa wanaag waa filosofiyadan maanta Jack Russell iyo nimankaasoo dhammi political issueskooda waxay ku saleeyeen asalka insaanku inuu yahay mid khayra qola saddexaad oo materialistka u badani waxay rumaysan yihiin insaanku inuu yahay safxa baydaa waa beige madhan bay leeyihin culture-kaa foom gareeya waxba kuma jiraan isaga islaamku wuxuu rumaysan yahay qofka bini aadamkii xagga khayrka inuu badan yahay laakiin nawaasic shar oo shahwaat nafsiga waxa kanaya nawaasic alkhayr bay inay ku jiraan ina hadaynaahu najdayn inuu yahay labada jid ba inuu qaadi karo laakiin asalku inuu yahay fitra saliima walaqad khalaqna alinsaana
في أحسن التقويم بإلهي بني آدم كو حنو أبو الري أحسن التقويم يعني وحي لين قفك بني آدم كيف فطرة دي سهدين لي سود أيو فطرة أبور كيسة يعني واحد شربي إلينا قومها in philosophy واحد أكسية مثل اللي هذا وحيابا أمبروف سكو باهنين قفك بني آدم كوح ناجر لي والرميسي مثلا الدان قالن كا قاضو وما باهنا دليل إن عقد بيا قاضي كره بمجرد أن قالن كا قاضي فوحن قرنا يا محي إن بمجرد إن عقد قاضي بيا فوحن كو قرن كرا محي إن قالن كا قاضي كره اللي كيو إنا بنسيدا كيه وما باهنا بيده دليل ساينسك هي فلسفة هي وحنا ودم وحكوس ليسيه وحي أكسم يمسك هذا سكال هذا نتلمام إلهي القرآن كوحنا قلت المام يا أبور كني إن بلنا ينك قاضي وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ربي جين ما هين ربي ويدي أما الساينس كدني ده على مدى كم موضع إنه شيء جيان إنه إلهي الرب قودي هاي سأوجد بقى إلهي وحكت الماما فاقم وجهك للدين الحنيف فاقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله دين تقوم من حنيف كا الشركة كدر وافقسم فطرة قفك بني آدم كا كقومي وجهك قبل الماما هذا واحد لنا هاي إنسان كوح يقول له ما بفطرته ما حمائه نوازع ده خارجية وحن environment كدبدا وحكاجا إيمانية أي أنت بدلوا مية ولذلك النبي يقول حليه إلهي بوحيلي إني خلقت عبادي حنفاء حنابوري الضمه يقول يقاقم من لما أنتم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم الشياطين تاويررتي أما شياطين الإنس هالنقضان والشياطين الجن هالنقضانه دبتنا يقى الدين توديك كحيي وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا دبو دندن إنه شوقنه واحد شوقه ده تريني ده ضد للطببري الله طببري وحالو ديبي إن يقفك بني آدم كاكا دين كران dadkaasi ha noqdo wasaaradda waxbarashada ilaa tacliim sare ha noqdo iclaanaadka iyo iclaamka iyo aflaamta iyo waxaan dadka sameeya ha noqdo adabka iyo riwaayadaha iyo waxa kan dadka qora ha noqdo waxaasoo dadii waxay u train garaysan yihiin inay qofka bini aadamka madaxiisa gadiyi karaan ولذلك يموستر المركز نشوفنا وحلا صناعة الرأي أركتدا والله السماية بيلين سياسيين برشة حقي اللي دونا بالوجه دي والله السماية هذا با تريد واحد يسكوا فقصنتهاي تعليمته وحبرشاده إن تي مالها أقوم مهمسا إسبدل كوكردعه وضن والبس سياسيين تشوفا واحد شعليين برشة دوينه هوموجينيوس جروب نقطة متجانس dad dhan wada jeeda iyadoo diversity tira badan uu ka dhex jiro kala gedisnaan badan ay jirto ayaa haddana waxa la isku dayayaa bulshadaas inay si qura wax u wada aragto si qura wada noolaan karto wada socon karto bulshada ay homogeneous ka tahay bay isku xidhnaanshiheedu ku xoogan yihiin isla markaa maamulideeduna ay ka fududahay markastoo dadka aragtidiisu isku dhadhow yahay in la maamulaa waa wax fudud markastoo dadka aragtidiisu aad u kala durugsan tahayna in la isku hayo la maamulaa waa wax adag haddaba waxay yidhaahdaan waxbarashadu waa meesha dadka isku aragtida lagaga dhigo compulsory education bay waddanadani samaysteen dadka waddanka degan oo dhami 10 sano ama 9 sannadood oo waxbarasho waa inaad qasab ku martaa 9 sano ama 10 sano waxa lagu barayaa bulshadan sida loola noolaado hadday afkooda tay hadday dhaqankooda tay hadday valueskooda tay hadday waxa qiimeynayaan tahay bulshadan waddanka leh siday u wada noolaan lahayd baa la baraa wixii ka sii dambeeya tacliimina
horumarka waddanka buu ka fakaraya xayaat kariima qofku sidii uu heli lahaa. ولذلك ayaa isticmaalku markuu qabsaday waddanadii muslimiinta oo kale, India waddan weyn oo islaami ahaan jirtay, boqortooyin waaweyn oo islaamiyana ka jiri jiray. Ingiriiska u yimi ayar buu u galay. Ingiriisku waddanka xoog kuma qabsanin, laakiin markii hore meel yar aan shaah ka beertay siiya buu yidhi, meel bay siiyeenoo shaah buu beertayo. Markii dambe wuxuu yidhi waa beertii waa layga weerweerarayaa ee waxoogaa huba halay ogolaado inaan la soo dogo beerta ku ilaashado, security baan u baahnay. Hubbaa loo ogolaaday, beertiisi buu ilaashaday. markii dambe boqoradii meesha joogay wixii sida Soomaalida isdilayso kala isdildilay, qoloba mar bay u dustaayo tiraahdaa waxoogaa hubano qol u taageera sidii ugu wada ka wada qaaday wadankana uu qabsaday. dabeetana system of education buu sameeyay. System of education kaas waxa ka waramaya niman culimo raggii waaga joogi jiray. waxa ka mid ah nin gabyaaya oo la yiraahdo Akbar Ilaah al-Abadi. Akbar Ilaah al-Abadi waa nin lawyer qaadi ahaan jiray, markii dambana gabyaa noqday. gabayadiisu waxay u badan yihiin gabayadan sukhriyada ee chess u badan ee fukahada dadku inta badan ay qabtaan. marka gabay buu tiriyay oo kaga waramayo systemka waxbarasho meesha jira. wuxuu leeyahay gabaygiisa markay af Carabi ku tarjumaan Sheikh Nadawi ayaa tarjumaya. wuxuu leeyahay yaa xasrata ala fircawn dhahab, maxaa murugo raacday ayuu ka waramaya fircoonkii tegey. fircawn reer banu Israa'iil buu ka shakiyay Soomaha, dowladnimadiisu uga shakiyay. deetana xukuma buu soo rogay inaanay wiil dhalin, wixii ilme ee reer banu Israa'iil dhalaan in la gowraco, la dilo, caruurnimada lagu dilo. ninkani wuxuu leeyahay markaa alla maxaa ceeb raacday buu leeyahay fircoonkii reer banu Israa'iil. كان عليه أن ينشئ كلية في مصر فلا يذكر بفظيعة قتل الأولاد ليه. وحن بيهيد بيقولوا إنه سيستم وحبرشية كلية ده سمايه وعيبتها عرور بولاي وكبح صدى، يعني عرورتم بعقل جودة بدل لها بولاي، مو وحبرش السماية بولاي وعرورت عقل جودة بدل أنتوا اللين أيوه عيبتها هيد عرورتوا لاي أيوه كبد بادلها. يعني وحط الماما إياه sida ay waxbarashadu u bedesho aqliga bini aadamka. ولذلك يعني فيلسوفها ومسلمة محمد إقبال لو رنشري كامبريدج يونيفرسيتي معلن كان جري وحنا كبرتي هل قرن كهر 1905 كيما لهاسي markii dambana Munich University ka baxay. waan filosofa waana nin gabiyaaya inta badan way yartay filosof gabiyaa. wuxuu ahaa ninkan nin dhanna filosofa dhanna gabiyaaya oo afkaartiisa markaa ku dhiiba gabay ahaan. ayaa wuxuu ka warramay waxbarashada markaas wuxuu ku tilmaamayaa isna tacliimtu buu yidhi التعليم هو الحامض الذي يذيب الشخصية وأي سير كبني آدم كأنت دلالسة الكائن الحي أي دلالسة أبو إليه ثم يكونها كما يشاء. دب تنسد الضانة أي دب قول سكرها وحاصل معنى هدوء محي ما waxbarashada inuu diidanay baa maya horumarka iyo nololeed ama adduunka horumarkiisa iyo aakhiro horumarkeedu labaduba waxbarasho ku xidhan yihiin. diintu saas ay sheegaysaa. haddaad rabto adduunka inaad horumarto iyo haddaad rabto aakhiro inaad horumarto labaduba waxay ku xidhan tahay maxay? waxbarashay ku xidhan tahay. saa awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebi aadam markii loo soo diray adduunka kan وعلم آدم الأسماء كلها وحبا الله صبري سقوا أقوان لبو يمي ساس با الدين تان إسلامي وحيوغوه الرئيه سودة يدو ماشي يكو سودة تايهين ميل صحارة وانا أقوني كتشرين وثقافة كتشرين وحبا كتشرين وضد أقون تحقالية دادك وفوق أي هذا القرآن كوحي أسوهر دقي وحا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وح علمك إيا قالنك إيا وحاك ورمية بل سورة الصدح هذا ما أفراد حتى قرآن كي سودك تهدنا نون والقلم وما يسطرون به. يعني يدو لغيابو
carabi waxay u baahnayd inay ugu badnaan lahayd waxyaabo kale ayaa qur-aankii ugu soo hordegay wuxuu ka warramayaa maxay qadiyat lcilm waayo bulsho ma aasaasanto haddaan cilmi jirin ilaahayna nebigiisii moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu gallad iyo manno sheeganayaa inuu waxbaray waanzala calayka alkitaaba walxikma wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlu llahi calayka cadiima baa ilahay leey waxaa lagugu soo dejiyey kitaabka iyo xikmada sunnada waxaana lagu baray waxaanad garanayn baa ilaahay yidhi kaasina waa ilaahay dheeraadkiisa weyn baa ilaahay leeyay oo alla ku siiyey yani ilahay wuxuu nebigiisa ugu gallad sheegtay in maxay in wax la baray nebiguna markuu ilaahay baryayay ducada qur-aanka ugu taalla waxaa ka mid ah waqul rabbi zidnii cilman ilahu aqooni kordhi bale nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada markuu tukado subax waxyaabuhu laazimi jiree subax kasta uu akhrii jiray waxaa ka mid ah allahuma ini asaluka cilma naafica wa risqan طayiba wacamala mutaqabala ilahu waxaan ku weydiisanayaa cilmi waxtara camal aada aqbasho iyo arsaaq xalaaloo طayiba subax kasta salaada subax markuu ka baxo waa ducooyinku akhrii jiray ilahay wuxuu ka magan geli jiray laakiin allahuma ini acuudu bika min cilmin laa yanfac aqoon aan waxtar lahayn haddaba aqoonta galbeedka taalla ee wadanadan taalla aragtida qofka muslimkaa marka lagu eego waxay isugu jirtaa waa waxtar adduun oo qabashna wata dakhanna wata markaan waxbarashada ka warramayno waxay idhaahdaan aqoon-yahanadu waxbarashada dunida taalloo dhan 3 qaybood unbaa loo qaybiyaa waxbarashada dunida taalloo dhan waxaan waxbarashada xoog ugaga warramayaa waxa weeyaan dee ilmahan intaynu iskuul geyno ayna wax damba ku darsanin si awgeed waxaan rabaa inaan tilmaamo waxbarashadu khatarteeda iyo waxa loo dhigaa wuxuu yahay iyo natiijada productkay soo saartay si aynu arki karno culumta bay yidhaahdeen dunida taalla waa 3 qaybood qayb waa la kala qarsadaa laysmana siiyo sinaba laysuguma ogolaado basaasnimada dunida ugu weyna iyaday ka dhacdaa qaybna waa laysku qasbaa sankaa layska geliyaa waa laysa siiyaa waa la maalgeliyaa qofka baranaya qaybna waa la kala gataa bay yidhaahdaan waxbarashada dunida taallaa bay yidhahdaan waa 3 qaybood qaybta koowaad ee aan sinaba laysu siin waxay yidhahdaan waa culuum siyaada waa culumta keenta wadan inuu dhaqaalaha dunida ama hogaamiyo ama xoogga dunida hogaamiyo ama waxaan hogaamiyo waa culumta ku saabsan bay leedahay maalan nuclear weapon iyo wixii ku saabsan laysuma ogola ciddii xariiqdeeda xaggeeda soo egtana haddii la tumi karo waa in la tumaa waa culumta ku saabsan cilmi alfadaa cirka iyo waxaan loo diray iyo wixii ku saabsiisan waa culumta ku saabsan hubka oo dhan iyo teknolojiyada ku saabsan waa culumta ku saabsan core ideaha ay leeyihiin shirikaadkan waaweyn ee dunida ka jira shirkadina ma bixiso core idea مثلا كوكا كولا بقول يا دور سنادود بو هذا سكرتيي ويلين مركز dunida 2 qof oo qura og hatta waxa meeshka jiro dhan meel bay ku qarsoontay bangi bay taala 2 injineer oo qura loo sheega waxa la isugu qaldo that's all cid kale ogi ma jirto baqol ya dhowr sanadood bay hadda maraysaa idan aqoomaha dhaqaalaha abuura xooga abuura taliska abuura waxa abuura la isma siiyo waxay yidhaahdaan dunida marka la eego basaasnimada ugu badanina waa meesha ay ka jirto waxa ugu badan ee la isbasaasaa waa in aqoon la xado weliba bay leeyihin waa meelaha inta isku jaalka ay xataa isbasaasaan isxadaan sanada qaar bay waxay leeyihin westernka basaasnimadii ugu badnaa isku sameeyey waxaanay ku saabsiisan tahay maxay core ideas la kala xadayo oo waxaa ku saabsan aqoonta iyada la isma siiyo ninkii agteeda soo marana waa laga durkiyaa waana ta dunida loogu taliyo dhaqaalaha dunidana lagu hayo taasi waa qayb kale waxay yidhaahdaan cid waliba way faafisaa dowladdu waliba waxay isku daydaa
safaaradaha ay dunida ku leedahay inay qayb ka mida safaaradeeda ka dhigto qaybtaa wax faafisa oo aqoonta ku saabsan bay idhaahdaan identityga waddanku leeyahay hadday diintay hadday culture tay hadday values tay hadday taariikh tahay hadday af tahay safaaradaha dunida safaarad kastoo aad timaado safaaraddu waxay leedahay qayb culture-ka ah safaaraddu waxay leedahay maxay maktabi thaqaafi maktabi thaqaafi muxuu sameeyaa wuxuu hirgelinayaa taariikhdii waddankan inuu dadka baro waxay rumaysan yihiin valueskooda inuu baro afkooda inuu baro ummad waliba waxay jeceshay afkeedu inuu faafo oo uu dunida gaadho qaybtaasi bay idhaahdaan waddan waliba deeqsi buu ku yihi dunida inta kale diintiisa iyo dhaqankiisa iyo afkiisa iyo valueskiisa imika western oo dhan baad maqlaysaa waxay leeyihiin xuquuqul bini aadamku ku xidhan yahay donorsku waxay bixinayaan xuquuqda la sheegaya waa maxay waa afkaartay reer galbeedku rumaysan yihiin ama l b g t dheh ama kandhe ama waxandhe ama waxandhe waxoodaasay ku xidhan yahay deeqaha la bixinayo waxa la samaynayo politicska booska la iska taagayo idan waa valueskoodii bay faafinayaan waa xun iyo waa san iyo kaas iska damayso waa valueskoodii bay faafinayaan waddan waliba wuxuu tijaabinaya afkiisa siduu u noqon lahaa maxay af international oo dunida laga yaqaano waddan waliba wuxuu raadcaynayaa taariikhtiisa sidii loo baran lahaa ay u noqon lahayd kaana sakaa la iska geliyaa waddan waliba inuu maalgeliyo waana meesha ugu badan ee wasaaradda waxbarashadu qabato higher education marka laga yimaado wasaaraddan waxbarashadu waxa ugu weyn ay qabataa waxa weeyaan culture-ka iyo valueska iyo afka iyo dhaqanka iyo diinta iyo aragtida ay dadku leeyihiin inay ilaaliso oo dadka la baro qaybna bay yidhaahdeen cilmiga ka midi waa qaybta bini aadamku wadaago oo waa la kala gataa una iyada lacagtaada dhakhtarnimada iyo injineernimada iyo waxyaabaha kanaynu sheegno idaarada iyo handasada iyo waxaa la kala barto oo dhan jaamacadkaad fiigaaga haddaad la baxdo waa maxay waa kuu banaantay therefore iyada waa la kala gataa un professorkana waad gadan kartaa jaamacaddana ardaygaaga waad keeni kartaa waa suuqa dhaqaale ee furan ee obinka idan waxay dhahaan tacliinta dunida waa saddexdaa qaybood waa qayb aan laysu ogolayn ee secrets oo cid waliba inay ilaashato rabto qayb sanka la iska gelinayo cid waliba inay faafiso ay rabto iyo qayb mushtarak bini aadamku uu yahay oo cid waliba ay gadayso haddaba inagu markaynu halkan nimi inagaan waxba sidane maran baynu nimi waxaanaynu nimi system waddan leeyahay oo degan oo ka fekeraya culture-kiisa dhaqankiisa afkiisa aragtidiisa valueskiisa siduu wax u arkaya ka fekeraya oo u dhigtay wasaarad dhan oo balaayiin min dollaaraad ku baxdo waxaynu rabnaa inaynu ku dhex noolaano waxaynu leenahay markaa waxaynu rabnaa ubadkeennu inaanu identitygiisa luminin inaanu afkiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa lumin maxaynu markaa inagu samaynay aynu bixina waxaynu samaynay malcaamad iyo masaajid malcaamadda maxaynu ku dhignaa inta ugu badan qur-aankaa lagu xifdiyaa that's all inta ugu badan imika baraarugu yari soo bilbilaabmaya wax kale lagu dara laakiin inta ugu badan qur-aankaa lagu xifdiyaa waxaa meeshan yaalla markaa wasaaradda waxbarashada iskuulladeeda waxaa jooga dad trained ah dad loo tababaray qofka bini aadamka ah inay wax u dhigaan oo ka dhaadhiciyaan malcaamadeen iyo masaajideedana waxaa jooga nin ama daacad oo raba inuu dadka wax u dhigo laakiin aan la tababarin macluumadii wuu hayaa aqoontii wuu garanayaa laakiin sida ilmahan yare da-dan joogiyo kan da-dan joogiyo saa loola dhaqmay loo traingareeya lama barin tababar ma qabo ama maahee waa nin shaqo waayeyba oo suuqa shaqada hadduu kasoo helana war malcaamadii cid u dirta anugu shaqaan helay buu leeyahy iska tegayaa hadduu hore shaqo u waayo oo dadkan afgaran waayo meelaha kanna malcaamaddu joogaya iyo alif dhedaasu wadaya iyo faatixada akhriyo ka idan laba system baa markaa rabnaa inay beratamaan system nin voluntary uu dhigayo ama nin dani baday uu dhigayo oo aan trained ahayn curriculum trained la tadwiiriyeyna aan wadanin oo aynu rabno inuu afkeeni iyo dhaqankeeni iyo diinteeni dhigo
iyo system qof tababarani uu dhigayo khubaro loogu talagalay inay manaahijtooda soo dejiyeen oo loogu talagalay dadkan in la isku milo oo hal mida laga dhigo. dhallinyaradeena markaa laba qaybood bay u qaybsamaan. qolo systemkaa iskala qabsata oo hore u socda, iyo qolo wadiba kari weyda. qolada wadi kari weyda guri foqoyra buu ka yimi, dhib bayna haysata, wax badan uma qaban karno ubadka, inanka yare isku classka yihiin, waa brand name wuxuu xidhan yoo dhami, kabuhu waa brand name, kaba daa nigsaanta brand name kolba nigiska yara hoose kalsumada la xidhanayo, surwaalkan waxaa dabada looga ridaa inaad muujiso brand name inuu yahay nigiskaad xidhantahay, inaad mid yaroo calala xidhnayn. dadkani markaa magac bay wada raadacaynayaan oo sitaan. inana haddii shaadhiya surwaal ba loo xidhay meeshuu tegey, inantiina xijaab yar baynu ku duuduubna meeshaynu geynay. waa la yasayaa, waa la dacaydaynayaa, waa la maagayaa. kii adkaysan kari waaya mid baa afka usoo dhuubaya, wuxuu odhanaya war ma rabtaa labadan kabood qurux badan inta baashan yar baa la qaadaayo halka yar baa laga iibiyaa, baashan yar qaad 1000 pound berawik baad helaysaa. baninkani ma cabba waxa kan, laakiin labadaa kabood naygaa buu u baahan yahay. maalinta hore u qaadaa kunbaa buu soo helaa, laba kabood oo cusub buu iibsadaa iyo koodh yaroo cusub, iyo systemkii iskuulka nin la socon karaya buu noqdaa wixii la watay. laakiin dee baasha haddaad bilowda lacagti waa macaantahay. marka hore lacag soo hel yaroo quick money baa u geysay, laakiin circleka mar hadduu galo oo lacagtu dhadhanto, waxbarashadan iyo waxani way baxaysaa. wuxuu noqdaa markaa akhiiran qof iskuulka ka dhacay oo ama drug dealer caadiya noqday, ama gang noqday, ama jeel ku dambeeyey, ama dawakayba oo musaxaadka caqligaa la geeyey, meelaha waalida la geeyey. kii kale systemka la qabsaday maxaa ka hor yimaada? kii si uun isu manage gareeye adkaystay inan ku yahayba systemka ku jiray, 13 year gradekii ka baxay, jaamacadu xidhxidhay, kaasina laba wax buu la kulmaya. kow, shahwaad tiro badan buu la kulmaya, hablo yareeroo isku xoqa